iska horimaad galaaftay nolosha dad rayid ah oo magaalada Xalab ee waqooyiga Suuriya ku dhex maray ciidamada Kurdida ee SDF iyo militariga Suuriya ayaa lagu warramay in lagu guuleystay joojintiisa kadib markii hoggaanka ciidanka Suuriya amray in ciidamada waddanku joojiyaan beegsiga dagaalyahanada SDF. ugu yaraan 2 qof oo rayid ah ayaa lagu warramay inay ku dhinteen weerarada ciidamada SDF ku ekeeyeen fariisimaha militariga Suuriya iyo xitaa xarumo rayid sida ay warisay wakaalad wareedda dalkaas ee Sana magaceeda loo soo gaabiyo. wasaaradda caafimaadka Suuriya oo sheegtay in cisbitaalada la dhigay ku dhawaad 10 qof oo rayid ah oo weerarkan ku waxyeeloobay ayaa ciidamada SDF ku eedeysay inay ku xadgudbeen shuruucda aadanimo ee ilaalisa rayidka aan hubaysnayn. waxaana wasaaraddu sheegtay in dagaalyahanada ciidankani si toos ah u beegsadeen cisbitaallo iyo goobo rayidka loogu adeego. haddaba isweydiintu waa maxay tahay sababta kaliftay in ciidamadani xilligan bilaabaan kacdoon dagaal oo hubaysan? ujeedada koowaad waxaa lagu micneeyay inay diidanayeen booqashada uu Suuriya ku tagay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan. ogow Turkigu ciidankan Kurdidu hogaamiso goor sii horeysay ayuu ku daray liis argagixiso maadaama Turkigu ciidamadan SDF oo magacooda loo soo gaabiyo Syrian Democratic Forces isla markaana maamula qayb ahaan xadka waqooyi ee Suuriya la wadaagto Turkigu uu ku jiriyo inay gacan saar la leeyihiin xisbi Kurdiyeedka PKK. booqashada Fidan oo haatan Suuriya ku tagay lafahanteeda ayaa muhiimadeeda lagu sheegay iskaashi wada shaqeyneed oo labada dal doonayaan inay ka yeeshaan arrimo ay ugu horeyso sidii kooxda SDF loogu dari lahaa ciidamada Suuriya loo qaramayn lahaa loona soo afjari lahaa khatarahooda aan saadaasha lahayn ee loo arko inay ka dhan yihiin labada wadanba. ha yeeshee wasiirka arrimaha dibaddu waxa uu isla shalay sheegay inaan SDF diyaar u ahayn in la qarameeyo isla markaana wax tixgelin u hayn muddo loo qabtay inay qorshe qarameyntooda aqbalaan taasoo ahayd ka hor curashada sanadka cusub. isla sababta labaad ee ay shalay dagaalka u bilaabeen ayaana lagu sheegay middan ah inay khalkhal ku furaan qorshahooda qarameynta ah ee horey looga heshiiyey balse weli aan suurtagelin. halka marka ay joogto aan ku sheego cidda ay yihiin SDF Syrian Democratic Forces. ciidamadan oo ka kooban isiro badan oo Suuriyaan ah bilowgii Kurdida ayaa asaastay isla iyaga ayaana haatan hogaamiya. waxaana la yagleelay dhamaadkii sanadkii 2011 balse waxa ay xoogeysteen 2015 intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Suuriya. waa dambana waxa ay ka qayb galeen oo guulo macnale ka hoyeen dagaaladii ciidamada Suuriya la galeen kooxda ISIS oo la sheego kala wareegidoodii Raqqa oo SDF hormuud u ahayd inay sabab u ahayd guushii weyneed ee dhamaadkii 2019 ISIS laga gaaray. balse intaas dabadeed ciidamadani waxa ay noqdeen kuwo istiidooyin badani dul hoganayaan. waxa lagu eedeeyay inay gacan saar dhow la leeyihiin PKK-da Turkiga taasoo sababtay iska horimaadyo ka dhex dhacay iyaga iyo militariga Turkiga. waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inay cilaaqaadyo kala duwan oo aan qeexnayn la leeyihiin qabiilada waqooyiga Suuriya iyo Dimashq lafahanteeda. Mareykanka ayaa si xooggan u hubeeyay ciidankan sidoo kalena siiyay tababaro sare intii lagu guda jiray dagaaladii ISIS ee gudaha Suuriya. waxa ay Mareykanka u ahaayeen mid ahaan xuduudaha maxalliga ah ee hormuudka ka ah dagaalkii Daesh dalkaas looga saaray. ha yeeshee haatan waxa la wariyaa in maamulka Trump doonayo in ciidan qabiileedkani si dhaqso leh qayb uga noqdo militariga Suuriya.